dhalinyarada degmada Buur-Hakaba ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wada ciyaaray kulan ciyaareedkoodii sanadlaha ah oo ahaa mid aad u xiiso badnaa. Dhalinyaradan oo magaalada Muqdisho u jooga waxbarasho ayaa sanadkoodii labaad oo xiriir dhigtay kulan ciyaareedkan oo ugu talagaleen inay isku dhaxgalaan iskuna bartaan. Maxamuud Saliim waa mid ka mid ah qabanqaabiyaashii kulan ciyaareedkan xiisaha badnaa. waxa uu inoogu warbixiyay muhiimadda loo qabtay ciyaartani. kulankan meelka maamusaya magaca degmada Buur-Hakaba oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sanadkii lamaad oo xiriir qabsadayna eedeedan ka faraasana intii uu kulankan sinabadaniga dhamaad oo sanadaanniga dhamaad insha Allah dhamaantood meeba ka gooyeen degmada Buur-Hakaba inta may roogan walbarashin roogan kulankan oo banoon istaxgal bulsho waa insha Allah may barajeyna insha Allah intii ciyaarta si wanaagniga dhamaad. dhinaca kale Cabdifataax Axmed Ibraahim Saldo iyo Muumin Maxamed oo qayb ka ciyaartoodii kulankan ayaa dhinacooda ka hadlay dareenkooda ku aadan kulan ciyaareedkani. xiisahan kulankan uu leeyahay waxaa ka mid ah sanadkii hore 2021 ay dhalinyarada degmada Buur-Hakaba ay kulan ay qabsadeen ayuu xiiso gaar ah u yeelaya waayo sanadkii hore uu tagay dhalinyaradii degmada dhaxdooda ayaa xifaaltan ay soo bandhigaan iyo bulshada si ay u tusaan eedeeda maasniya TV-ga Muqdisho Cable kulanku mayba kulan muddo badan sugaani waa sanadkii lamaad ee la iska argay ciyaaryahanada ama dhalinyarada degmada Buur-Hakaba ka jeedan oo gobolka Banaadir waxbarashada Rowan mayba kulanku ahamiyad eedeed weyn leh waa muddo badan la sugaani. si kastaba kulankan oo ay wada ciyaareen ayaa ah kii ugu horeeyay oo ay qabsadaan dhalinyarada ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.